Maryaha wakaaladda biyaha Burco ay weheliyaan maamulka gobolka Togdheerka degmada Burco iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tegay halka ay ka socoto shaqada biyo ballaarinta ee magaalada Burco halkaasoo si rasmi ah looga bilaabay ceelal qodista ceelal cusub oo ka mid ah mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Burco waxaana halkaasi ka hadlay maryaha wakaaladda biyaha Burco Sakariya Cabdiraxmaan Lulumbe isagoona sharaxaad ka bixiyay mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Burco. Barsaab halkan joognaa waxa weeye mashruuci biyo ballaarintii Burco halkii loo qoondeeyay waxa weeye waa laba meelood waa laba dhisan riigii hore waa la bilaabay wuxuu ku yaalaa meeshan la yiraahdo Wisir halkanna waa qaybtii labaad meeshan waxaa la doonayay in loo xiro biyaha Burco oo ilaa kaba dheere ilaa halka ay taaganahay loo qoondeeyay wixii dambe ceel la qodayo ee wakaaladu leedahay in laga qodo mashruucani bilowgeeda hore facekeeda hore waxa loo qodayaa 7 ceel mashruucani wuxuu ahaa 12 ceel laakiin 7 horeenaya ka halka laga qodayo Wisir waa ceel tijaaba oo ceelasha kale 6 ayuu ugu horeeyaa halkan waa halka mashruuca looga bilaabayo wuxuuna ugu horeeyaa ceelkan ay maanta joogno. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cali Salebaan Ramaax maayirka degmada Burco Mustafa Calas iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer Salebaan Ducaale Ubaxle ayaa xukuumadda Somaliland uga mahadnaqay mashruucaasi biyo ballaarinta Burco sidii ballanqaadku ahaa mashaariicdii madaxweynuhu ka dahafuray gobolka Togdheer bilowgiisii aan taaganahay waxaan leenahay abshira shifo ku absaar insha Allah taala biyahaas iyo biyo ballaarinta horumar biyo ka horeeya iyo nolol biyo ka horeeya nadiif ma jirto wada ognaytaa sidaynu wada ogsoonahay maarayuhu ka waramay horena dadka reer Burco dhogahooda ay u maqleen aagan kaba dheere ilaa iyo Dooxa waxa loo xiray biyo ballaarinta gobolka Togdheer ama degmada Burco laga waraabin doono noloshu waa biyo bulshada gobolka Togdheer waxaan leeyahay biyuhu waa meelaha la wada ilaashado ee ummadoo dhami wada leedahay haday tahay beebkiisa haday tahay ceelka waxaan mar labaad ku celinayaa ummadda kuma filna biyo baraafada waxa ummadda reer Burco ku filan biyo dawliga dawladdu gacanta ugu hayso oo danyartoodu ka cabto oo biyo saafi ah waxaan leeyahay hal la ilaashado waa danguud shirkadaha ku deeqay biyahaasna waanu u mahad celinaynaa waa la dhameeyay waxaan u joognaa wanqashii mashruucii ballaadhnaa ee Burco hadday kay tahay hadday biyo gelintiisa tahay iyo hadday biyo ballaarintiisa tahayba aad u qiimaha badnaayay ku kacaysay qiimaha u dhigan $7 milyan taasoo runtii uu maanta aynu wanqashiisii u taaganahay ilaahay waxaan ka baryaynaa kii inoo hirgala ee ceel walba biyo macaan laga helo ilaahay ay inooga dhigo ta kale waxaan raacsanayaa awaamirta ka soo baxday wasaaradda anigoo fulinayna gobol ahaan sidaa horeba laydinku sheegay degmo ciidan wakaaladda iyo wasaaradda biyaha amarkaa ka soo baxay Burco inay kaydkeedii biyuhu yaalaan eriyadana aynu joogno loona ilaaliyo loona dhowro waan fulinaynaa cid aan fasax u haysan oo qodi karta qaasaan waxaan ogeysiinaynaa shirkadaha biyaha qoda iyadoo marka horeba xataa markay baraafid u qodayaan ay soo maraan dee wasaaraddu ay waajib tahay inay fasax u soo qaataan eriyada in meeshani ay kaydkii Burco tahay loona ilaalinayo magaalada Burco mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba sidaa daraadeed inaan cidina isku hawlin inay kula tartanto wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyaha dadweynaha runtii waanu mahadnaqayaa waa afkuunbay dee beer ka tahe ilaahay mustaqbalkiisay ku sugayeen laakiin hadda ninka halkaa biyo ugu yimaadeen dee waynu ilaahayna u mahadnaqo xukuumaddana u mahadnaqo Khaliil Barra Uraan warbaahinta qaranka Somaliland Burco.